laakiin mar walba waxa ku dhex jira shacabka iyo xukuumadooda ama dawladooda iyo madaxdooda waxa ku dhex jira danley yaa ku dhex jirta danleydaasi wax hadda taagan kaliya ma ah waxa weeye waa wax soo taxnaa anigu maanta qalbigayga idin kala hadlaya waxaan idin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyey 7 bilood ka hor iyadoo 1 bil iyo bar jirta yaa waxaa lagu shiray waddanka dibadiisa lagu shiray oo la yiri dawladdan waa in la mucaarado waa in laga hor yimaado waa in mooshin laga keeno waa xaqiiqo way maba dhalanba dawladdii mana shaqaynin weli waxay ku jirtaa waxbarasho ku jirtaa markii waxa laga hor keenay mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo indha lahayn dhagana lahayn oo ah dhaqan hore u jiray waxa hadda arkaysaan 4 sano ka hor way jirtay dawladdan ka horeysay markii la doortay iyadoo 6 bilood jirta yaa layla soo hadlay aniga oo la yiri waa la mucaaradaya dawladdaas ee ka soo qayb gal oo xaqiiqo waxa idin sheegayo oo waxaan ku yiri dawladdan 6 bilood jirtaaye maxay ay sameeyso lagu mucaaradaya dadka hawshan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen xaqiiqada idin sheegaya waxaan kula taliyay oo ilaahay hortiisa ah waxaan ku iri waqti hala siiyo dawladdu waa urdun hadda la doortay sanada siiya waqtiga markuu soo dhow yahay qofkii damac ku jira 1 sano markay dhiman tahay qorta wax alla wixii ka halaabay waa bini aadane intaas keena oo ummadda u sheega inaad idinku wax ka fiican qabanaysaan laakiin lugaha iyo tafaha ayaan la qaban dawladda haddana tiibaa socota tafihii baa la rabaa in la qabto oo 10 sano ka hor wixii bilowday hadda ay socdaan oo dib loogu noqdo waxyaabaha keenay in dawladda iyo shacabka la kala fogeeyo waxaa la yiri been fakatay run ma gaarto markii propaganda iyo been iyo wax aan jirin lagu celceliyo shacabkii rajadooda hoos yaa loo dhigaya waa la qalbi jabinaya sharcigi ee shacabkii ilaan been iyo propaganda iyo waxaan jirin yaa loo sheegay iyo waxaan xaqiiqo ahayn taasaa waxay keentay shacabkii iyo dawladdii in la kala fogeeyo taasaa waxaa keentay shacabkii in dawladdoodii ay kalsooni siin waayaan oo iyadoo dawladdii lagu dhagan yahay 4 sano ee ku dhamaysta waqtigeedii iyadoon waxba qaban oo lagu dhagan yahay oo isdifaacaysa waxaan idiin sheegayaa xaaladda dagaalan ku jirno naga bixin mayso waxa loo baahan yahay hal cadow yaan leenahay halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cid u naxaynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dawlad u shaqeeyo inuu shacab yaan kala jeclayn cadowgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaano aan isku soo noqon annaga dhexdeena propagandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira propagandada beenta ah oo ciidamadii qalabka siday oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kaneecada cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkan ku dumay oo qabyaalad ah ma ogolaanayno annaga waxaas ogolaan mayno dalkan dib buu soo maray dhibkii uu soo maray 27 sano waa aragtan meeshaan taagannahay waxaan taagannahay in dalkeennii uu ka liito waddamada Afrika oo dhan uu ka liito annagoo la og yahay inaan nahay dad wanaagsan oo wax walba isaga mid ka ah annagoo la og yahay dad active inaan nahay oo maskax badan annagoo aysan nagu yareen aqoon iyo khibrad saasay tahay dad yar oo danley ah yaa ummadda ku dhex jirta oo shaki iyo qabiil iska dhex gelinaysa ummadda Soomaaliyeed way ka kortay hawshaas annagoo xaaladaas adag annagoo ku jirna wixii dhacay 14 Oktoobar oo ahayd musiibo qaran waxay noo dhashay musiibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay waxa taas ay ka turjumaysaa markii aan halkan isugu yeernay dawlad goboleedyadii
oo aan muddo fadhinay oo aan ka wada hadlaynay dalkan sidii looga xoreyn lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka oo shabaabka ah oo aanan ummaddeena u naxaynin waxaan gaarnay musiibadii dhacday inaan midnimo qaran u bedelno oo aan ku midowno oo aan dagaal galno annagoo midaysan inaan ka hortagno cadowgan oo dhammaystiran dhallinyaradeenna dumarkeenna culimmadeenna cid walba leh taasi waxay keentay